dambaysa galmudug aadan uga xunaa waxa ka dhacay wax dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug u qalma ma aha inay ku kala duwan yihiin maxaa yeelay mid kastaba wuxuu ku dhisan yahay xoog kuma dhisna fikir kuma dhisna aragti kuma dhisna xurriyad ee wuxuu ku dhisan yahay nidaamka meesha ka jira hadaa ka hortimaado xabsi iyo dhibaatayn annaga marka dawladnimada aan ka soo shaqeynay ma ogolaa karno inay noocaas noqoto oo dadka lagu dhibo madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday waa ogtihiin markuu doorashada ku jiray wixii aan la soo marnay waxaan dadaal la sameeynay dad aan waxba u galin oo maalinkaas laga yaabo inay ka soo horjeedeen ama ay ka shaqeynayaan in la dhibaateeyo amaanta waxay leeyihiin Shariif soo dil waa wada naqaana waana qaraabada ways wada naqaana nimankii shalay la yiri diyadana qaata labadana soo dila maanta inay madaxweyne Xasan Dhahan Shariif soo dil ee asaguna oo yaalo horta waa doqonnimo horta waxaan rabaa inaan idin sheego alla dilaa dhinta aniga nin hadda lagu handadayo waa lagu dilaa oo wax isaga bedelaan ma ihi waqtigayga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waana ku qanacsana waxaan u soo istaagay oo shalay aan intaan garaadkii ka yariya oo dadka aan aqoonin aan u soo istaagay maanta ma bedelaayo in shartina ma aha ninka meesha jooga madaxweynaha meesha jooga inaan qaraabanahay iyo inaan qaraabo ahayn shalay aniga madaxweyne Xasan madaxweyne Farmaajo asaga xilka ku wareejiyay waa isla mucaaradeen inta madaxweyne Farmaajo oo bixiyay Xasan tuman laabkeedu u bixiyay dastuurkii uu bedelay wuxuu ka hor yimid xurriyaadkii wuxuu ma taqaanaa dhabar ka saartay arrintii doorashooyinka ayuu dhabar ka saartay wuxuu qaybiyay dalkii maanta waa la socoteen maamul goboleedadii xoogaa lagu wada dardaray